waa qaybtii labaad ee qisadii ninkii fadeexayn jiray dumarka. Daawade, haddii aanad hore usoo daawanin qisadan qaybteeda koowaad, run ahaantii lama qabsanaysid qaybta labaad ee soo daawo marka hore qisada qaybta koowaad. Waxaan raali gelinayaa dhammaanba asxaabta qiimaha lahayd ee iga sugayay qisada qaybta labaad ina soo weydiinayay in aan kala soo raagay igu qaata midhka igana raali ahaada. daawade, haddii aad ka heshay qisadan, fadlan ha ilaawin inaad shaar garayso, muuqaalkana like saarto. Waa anigoo ah Nadra Saciid. Ninkii askariga ahaa markii uu is-hor keenay gabadhii dhibanaha ahayd iyo ninkii dumarka fadeexayn jiray, run ahaantii ninkii wuu dafiray. Gabadhiina wuxuu ku yidhi, nayaa tahay, maba garanayo waxa aad ka hadlaysid, mana fahmaya waxa aad ka sheekeynaysid. Isagoo welibana u hadlaya si isla weynu ku jirto. Gabadhiina aad bay uga niyad jabtay arrinka, waanay ka xumaatay oo way ka murugootay. Waxay ka soo baxday iyadoo murugaysan, wejigeedina isbeddel badan oo weyn ku yimi. Askarigii baa saa u eegay oo ku yidhi, dambiilahan waan qabanaynaa, sirtiisana waan kashifaynaa ee isdeji. Arrintu markay bartaa maraysay, askarigii talo ayaa ku caddaatay. Waxuu marayaa maalinkii afraad. maalinta shanaad haddii la gaadho, ninkan waa la sii deynayaa oo caddayn rasmiya welina gacanta kuma hayo uu maxkamadda ku geeyo. Askarigii oo warwarsan oo kiiskan meel u dhaqaajiyaba garan la ayaa maalin waxaa soo galay xaruntii booliska nin wada inan yar. Kadib wuxuu ku yidhi, ninkan ku xidhan meesha ayaa inantayda u cagajuglayn jiray, una hajabi jiray, kuna odhan jiray muuqaalo iyo fiidiyooyo ayaan kaa hayaa, waxaan doonayana waa inaad ii samaysaa, waana ninka meeshan ku xidhan. Wuxuu yidhi, markaan arrinkaa maqlay aad baanu farxay. Askarigii run ahaantii wuxuu siray, imaka ayaad caddayn heshay. Askarigii wuxuu bilaabay baadhitaan fara badan. Sidii si lamida ayuu wuxuu baadhay ninkan gaadhigiisii oo wuxuu isku eegayay inantan nambaradii laga soo qaraaci jiray inay isku mid noqdaan bal imaka. Laakiin nasiib xumo, nambaradii laga soo qaraaci jiray inanta iyo welibana nambarada ninkan uu iska leeyahay isku midba maba ahba. oo askarigii uu yaabay, waanu og yahay inuu ninkan yahay nin dambiile ah. iyadoo xaaladii bartaa marayso ayaa haddana isla maalinkii afraad waxaa timi gabadh kale oo leh, ninkan ayaa iga qaatay muuqaalo oo uu igu fadaxadaynayo, iguna hanjabayo. waa ninkan meesha ku xidhane. waa gabadhii saddexaad ee ka dacwoonaysa ninkan meeshana timi. run ahaantii haddana askarigii wuu yaro farxay. wuxuu siri, bal imaka ayaad caddayn saxa heli doontaa. wuxuu galay baadhitaan kale oo sidii hore ah, laakiin nasiib xumo nambarada inantan laga soo qaraacayay maba ahba nambarada ninkan oo qof kale ayaaba iska leh. kiiskii wuxuu noqday kiis run ahaantii adag, caddayna loo waayo. wakhtigiina wuu dhammaaday oo maalinkii shanaadee ninkan uu jeelka ka baxayo ayaa la marayaa. markii gaadhay wakhtigii uu ninkani ka baxayay meesha ee 5 galabnimo ay tahay, ayaa waxa dhacday, askarigiibaa wuxuu u soo qaaday alaabtii ninkan laga qaaday markii la xidhayay, waanu u soo celiyey isagoo ugu soo dhex riday warqad oo uu ugu talagalay inuu ninkan dambiilaha ahi akhristo. ninkiibaa markuu alaabtii qaatay ayuu waraaqdii arkay. intuu akhriyo askarigii saa u eegay, si ku jees-jeesa ayuu waraaqdii aadir dhulka ku tuuray, waana iska baxay. inantii koowaad ee run ahaantii soo dacweysay ninkan iyo hooyadeedoo wada socda ayaa askarigii u yimid. waxaanay ku yidhaahdeen, askari, waad nala dadaashay run ahaantii, laakiin ninkani waa khaayin weynaaday, lamana qaban karo sirtiisa, laakiin waad ku mahadsantahay gacanta aadna siisay iyo welibana wakhtiga aad noo hurtay. islaantii inanta dhashay ayaa waxay tiri, ilaahayow waxaan kaa baryay ninkaas qalbigiisa gub suu inantayda qalbigeeda u gubay, oo noloshana ku dhib oo welibana dhimashadana u diid. way habaartay iyadoo welibana si xun u habaartay. askarigiina wuu fadhiyaa goobta isagoo habaarkaas ka yaranahay. kiiskiina sidaas ayaa lagu xidhay. muddo waxaa kasoo wareegtay dhowr sano ah. ninkii askariga ahaana waa laga wareejiyey saldhigii oo qayb kale ayaa loo wareejiyey. maalin maalmaha ka mida ayaa wax dhacday, ninkii askariga ahaa in lasoo qaraaco. qaraacitaankii farfarka aha maaha, in lasoo waco. yacni markii lasoo wacay ayaa lagu yidhi, askari, goobtii hore aad ka tagtad ka shaqayn jirtay kartoon ayaa kuu yaala alaab ah, kaalay soo doono. waxa dhacday, dhowr cisho ayuu dib uga soo dhacay oo wuu yaro raagay, laakiin wuu yimid. alaabtii kartoonka ku jirtay ayuu furay. waxa ku qoran magacaasna wuxuu ahaa magacii ninkii dumarka fadeexayn jiray. wuu yaabay, alaabtii buu eegay, mise waxaaba ku jira meesha
laabtooyo, moobilo, kaadhadh fara badan, cadaymihii uu daydayi jiray oo dhan ayaa meesha ku jira. Wuu u qaadan waayay run ahaantii, wuuna yaabay. Wuxuu is yidhi talow cadaymaha ninku waa kii diidanaa in la ogaadee muxuu u soo dhiibay. Isla markiiba askari buu u yeedho uu ku yidhi faylkii hebel hebel uu ku qornaa dib iigu raadi oo baadh faylkaas iminkaanu cadaymihii helnay ninkan aanu ku qaadno dembigiisoo maxkamadda aan geyne. Isaguna alaabtii wadwado baadhayo eegaya ayaa alaabta waxaaba ku dhex jiray warqad yar. warqadaasna waxa ku qornaa warqadan oo uu soo qoray ninkii dumarka fadeexayn jiray. wuxuuna yidhi maanta mana dhiman mana nooli, waxa igu dhacay xanuunka adduunka ugu xun. welibana wuxuu ku daray 3daas hablood ee aad ogeyd ma ahee dumar kale oo fara badan ayaan dembi weyn ka galay oo waanigaa kuu soo wada diray. waxaan kaa codsanayaa intaad faamligooda u wada tagto inaad iisoo weydiiso cafis. run ahaantii maanta mana nooli mana dhiman. askarigii markuu intaa akhriyay wuu yaabay waanu naxay. kadib waxa dhacday ninkii ayaa faylkii u keenay. faylkii intuuna furin ayaa warqadii akhriskiisii buu sii wataa. askarigii wuxuu arkay qoraal uu waqti hore usoo qoray ninkan oo uu isaguna xalka ugu dambeyso kusoo qoray uguna dambeysiiyey hadalkiisa. qoraalkaasina wuxuu ahaa ina aladiina fatanuu lmu'miniina waalmu'minaat huma lam yatuubuu falahum cadaabu ljahannam walahum cadaabu lxariiq. waa hadalkii maalinkii hore uu askarigu ugu qoray waraaqda ayuu ugu soo dambeysiyey isaguna qoraalkiisii. askarigii haddana wuxuu soo qabtay faylkiisii wuu furay oo dib buu u baadhayey. waxa dhacday inuu ku arkay haddana ninkani inuu dhintayba waqti xaadirkan oo xilligu dhintayna waxa weeyaanba xilligu soo diraayay kartoonka 3 cisho kadib ayuuba ninkani dhintay. gabadhay waxaan kugula talin lahaa haddii aad aragto nin sidan oo kale u xun inaanad qarsanin ee aad u sheegtid cidda dadka kugu dhow. qisadan oo run ahaantii laga yaabaa badankiinu inaad kusoo maqasheen macalin mubaarak aar oo aan kasoo xigtay. asxaabta qaaliga ah ee igu xidhan waan idinla jeclaaday idinkana inaan idinla wadaago. fadlan haddaad ka heshay muuqaalkan like dheh, videogana sii share garee si aynu u helno saaxiibo adigoo kale ah. waad mahadsantihiin.